Qorayaasin Daahir oo ka mid ah qorayaasha Soomaalida ee degan dalka Faransiiska waxna ku qora luqadaha Faransiiska iyo Soomaaliga ayaa waxa si weyn u soo jeedatay Cabdilqaadir oo ah nin dhawaan aan warbixin ka diyaarinay oo labada lugood iyo gacmihiisa mid ka mid ah ka naafa ninkaasi oo magaalada Hargeysa gudaheeda taxi ku wata kana shaqeysta qoraaga ayaa qisada ninkan waxa uu noo sheegay inuu doonayo inuu ka diyaariyo buug dhab ahaantii barnaamijkan khuseeya ninka la yiraahdo Cabdilqaadir Axmed Cabdullaahi Aar oo ah nin naafa ah haddana macnihii noloshiisa nolol maalmeedkiisa kala soo baxa macnihii nolol maalmeedkiisa ku maareeya magaalada Hargeysa kana taksiile arintiisa aad bay ii taabatay arintaasna waxa iiga sheekeeyay markii ugu horeysay nin uu ka soo qaaday airportka oo aynu saaxiibanahay ninkaas oo la yiraahdo Cabdullaahi Laqjon oo nin reer Djibouti ayaa sheekada iiga sheekeeyay wuxuu yiri niyahow waxaan la kulmay nin maskax bilaa jira arintaasan dul istaagay maskaxda bilaa jirka markaasaan waxaan weydiiyay Cabdullaahi muxuu ula jeedaa maskaxda bilaa jirka markaasuu wuxuu ii sheegay inuu jiro nin curyaana naafa macnihii hal gacanun u fiyowdahay haddana gaari ku wada Hargeysa arintaas markay taabatay ayaa waxaan go'aansaday inaan macnihii Cabdullaahi ku iraahdo bal ninka itus si wanaagsanna intuu ii kaxeeyay meeshii uu ka shaqeynayay baan ugu tagnay ninkii baan waraystay ninkii waxaan go'aan ku gaaray in macnihii noloshiisa buuq khusaysa sida uu u maareeyo iyo meesha uu ka yimid iyo meesha ku socdo hididiilihiisa markii aynu dhan walba ka wada eegnay ayaan waxaan dareemay inay muhiim tahay inaan dadka shacabka Soomaaliyeed iyo Somaliland iyo geeska Afrika meel walba joogaan inaan ka dhaadhiciyo in macnihii arinta ugu weyn ee macnihii bani aadamku ku nool yahay inay maskaxda tahay laakiinse aysan ahayn maaragtay xoog wax lagu keeno ninkaasna noloshiisa wuxuu ku maareeyay maskax waa Cabdiraxmaan Jumbo Sam News TV Hargeysa